Heerarka mudnaanta la siiyey ayaa ah waxa uu ardaygaagu u baahan yahay inuu ogaado dhammaadka sanad dugsiyeedka. Waxaan ku hubin karnaa tani inagoo fiirinayna haddii ay horumar ku socdaan, qayb ahaan fahmayn ama aqoon u leeyihiin. Dugsiyada qaar waxay ugu yeeraan qaabkan ku qiimaynta waxbarashada. fasalka xanaanada carruurta waxaad ku muujin doontaa dareenka tirada. Tan macnaheedu waa inaad taqaanid oo aad adeegsanaysid nambaro. Waxaad ku muujin kartaa tan adoo garanaya sida nambaradu u egyihiin iyo sida loo isticmaalo nambarada si wax loogu tiriyo siday u kala horeeyaan. fasalka xanaanada carruurta waxaad ku xallin doontaa dhibaatooyinka adoo adeegsanayo xeelado kala duwan. waxaad ku muujin kartaa tan adoo ka jawaabaya su'aalahan: imise shay ayaa halkan yaal? imise block oo midab kala duwan leh ayaa halkan yaal? ma abuuri kartaa 3 koox oo ka kooban 10 block? Tan macnaheedu waxa waaye waad isticmaali kartaa nambaro iyo tirinta si aad uga jawaabto su'aalaha. fasalka xanaanada carruurta waxaa lagu weydiin doonaa inaad muujiso aqoontaada qaabka geometriga iyo nashqado. waxaad ku muujin kartaa tan adoo ka jawaabaya su'aalahan: ma i tusi kartaa 3 geesle, 4 geesle iyo goobada? miyaad sawiri kartaa ama isku daba xijin kartaa 3 geesle, 4 geesle, 3 geesle, 4 geesle? Tan macnaheedu waxa waaye waad kala garan kartaa farqiga u dhaxeeya qaababka sida wareegyada 3 geeska iyo 4 geeslaha. fasalka xanaanada carruurta waxaa lagu weydiin doonaa inaad fahanto xiriirka ka dhaxeeyo tirada iyo tirooyinka guud. Tan macnaheedu waxa waaye waad isticmaali kartaa nambaro si aad u muujiso inta waxyaalood ee koox ka kooban yihiin. waxaad ku tusi kartaa inaad taqaanid tan adoo abuuraya ama tirinaya koox waxyaabo